gudoomiye ku-xigeenka maamulka ku-meel gaarka ee ka arrimiya qaybo kamid ah gobolada Jubbooyinka Yaasiin Nuur Gaas ayaa mar uu wareysi gaar ah siinayay TV-ga caalamiga Hon Cable waxa uu ka warbixiyay maamul u sameynta gobolada Jubbooyinka iyo Gado isagoona sheegay in uu kamid yahay musharaxiinta u tartamaysa xilka madaxweynenimada Jubbaland. Yaasiin Nuur Gaas ayaa intaasi raaciyay in hadii loo doorto xilka madaxweynenimada Jubbaland oo wax badan uu qaban doono shacabka ku dhaqan guud ahaanba gobolada Jubbooyinka iyo Gado. Waxa looga aadanaa dadku waxa rabaan in maamulka waxa samaystaan ku taageero yaa nooga aadanaa waxaan la qaban karno inaan la qabano يا رتاني أنا واجبين تاسوا كل ضد تلاقي سينو كأنصده الله وحي عن قولك إنه غلط صدق قفك الدورته إن أقول شيء مسؤول عن هذا كل هذا أولياء شباب وحي عن سحنته أنا خير وتحمل الدراسة لأنه حسي عادي تسوق الدراسة بعضنا بعضهم من العويل انت اساسي انت يا مشرع ديني انا مشرع مدحوينانا وركاس ما وعدي وقتيده iyo markii la ka hadlayna hadda ma aan wadi wanaan karaa gobolada dadka degan waa dadka goostay inay wax u dhistaan 20 sano dagaal ku jireen waxay goosteen inay ka baxaan dagaalkii in la heshiiyo dhulkan waa dhulka ugu barwaaqo badan Soomaaliya webiyada leh dekadaha iyo badaha leh marka hadday noqoto dhulka kan uu noo helo wax laga dhiso waxaan filayaa inay dhici doonto adduunka uu soo shaqeeyo sidii ugu xoreyn lahaa waxa weeye in wax la dhiso hadda meel la qabto lagu dilo waxa ka fiican dad sharci leh oo dawlad leh oo xuquuq inuu dilo marka aniga waxay tahay inay ka habboon tahay intii la qabto lagu dilo mashaakil ka imaada inay fiican tahay in dadku isku yaayisiin oo wax u sameeyay dhulkii la qabto waxay ma wax badan dhimana gobolka la yiraahdo Jubbada Dhexe iyo gobolka Gado laba meel oo kamid ah ya shabaab hadda jooga ayadana shacabku waxaa filayaa waxa qabanaya عندنا دولة سومالية في صبر هايستان مانك ودولة فرصة إنه في هايستان إنه وحبستان إنه نبقى قاطان إنه الدركة والدب أسر أليا ونادي يصير شرفتيش إنه الدولة حرمان دولة دولية بلجارة وفي الدراب تستور كذا نجي دولة إنه وحرمه دولة كان سيمو شرع وقبله يوصمه dadweynuhu intaas in dawladdiisana taageero waxa asagu qabana u qabsadaan qabaa dawladdu waa ka soo qaybgalaysaa dadkana ayaga madax u ah dadku waxay rabaan bayna rabtaa dawladdu way imaanaysaa haddii iyo laba midna meel dawladda Soomaaliya waa dawladdeedii dadkaan wuxuu rabaa maamul goboleed ayadaana dastuurkeeda Yaasiin Nuur Gaas waxa uu taageero xoogan uu ku leeyahay degmooyinka iyo deegaanada haatan ay gacanta ku hayaan maamulka ku-meel gaarka ee ka dhisan qaybo kamid ah gobolada Jubbooyinka. Cabdiqaadir Iimaan Dhaqane, Hon Cable TV, Kismaayo.